الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي العزيزة، مرة شرحنا كلمة عن نفس هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أصلاً أحاول درس ولا لازم لكن ما كان كثير ماشي في الوقت waxaan sidii doonaa waxoogaa taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam masiiradiisiina wax ka nidaano waxaanan isku dayi doonaa inaan qaab aan ilqeynaya inaan kitaabka farta marinaynin, inkastoo dadka inta badan codsanayeen kitaabka raxiiq almakhtuum la yidhaahdo. anaga shayigala macaan yahayba akram diyaal cumar ee asiira nabawiya saxiixatiisa la yidhaahdo. laakiin waxaan isku dayi doonaa un bal cumuuman labada kitaab baynagu adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono. waayo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqan geliyey. marka waa dadkii diinta dhaqan geliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam, saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka. inaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah, laakiin marka kale waxa weyan isagoo camaliya oo dad ay matelayaan qur-aanka iyo sunnadii, yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matelayaan qur-aanka iyo sunnada siday ekaayeen. saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhowyay qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba. waxaan isku dayi doonaa markaasi balse labada sheekh usoo naqlayaan inta badan inaanu soo guuriyo. haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanya in gaar loo sii tilmaamo insha allahu haddaynu awoodno isku dayi doonaa. cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyeen gogoldhac ama hordhac. hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nabiga ka horeeyay calayhi salaatu wasalaam. hordhaca waxaa looga danlayay inay dadku fahmaan bulshadii uu nabigu u yimi caynka u ekay, si aada u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe sida u ekaatay. yani waxaad qiimeyn fiican sawiri kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawirna siday u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa. oo markaad ka jaahiliga ah suuradiisa aragta ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay. waxaa kaloo runtii dhadhawaanayaad garan kartaa maadaama mujtamac nooca u egba la horay oo islaamnimada ay bedelka intan lee ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida kamid ilaa la rari karo nooca loo rari karo. ay ku xiran tahay sida alla ina waafajiyo subxaana watacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo dadka diinta kan ugu yeeraya. qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga qorta qaarba sibay u tilmaamaan, qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inu kasoo sheega. yani min aadam kutuba taarikh in badan oo kamidi nabi aadam bay kasoo bilaaba. qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla sameeyey waaka ilaa ay soo gaarsiiyaan. laakiin taariikhahaas hore qadiimka ah waxoogaaba yare waxyigu sheegay mooyaane inta badani maxfuud maaha. sidaa awgeed labadan kitaaba horteena yaalla midba in buu soo koobaya, laakiin waxaa isku dayi doonaa inaan si fudud u wada guud maro. ko, ummadda carabeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhahdo unbay taarikhdeeda dhandegi jirtay. carabta taariikhiya markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan. carab ay yidhahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantee hore ee gabowday, waa caad iyo samuud iyo kuwan qur-aanku ka waramo. iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaarida oo ah qaxtaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha. iyo carab almustaaraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah. inkastoo culamada bad ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen, waana sida uu rajaxayo ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximah llah. alxaafid ibn xajar waa sida uu rajaxayo, isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxtaan waa min aali naabit ibn ismaaciil buu qabaa, halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibn ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno
had iyo goor taariikhda carbeed marka la tilmaamayo masalan qaxwaaniyiinta nimanka la yidhahda asal waxau ahaa yeman laba qabiilo waaweyna way u qaybsanaayeen niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray kahlaan inta badan waa guureeno sham iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen ximyar inta u badnaa dadka meesha kan kusoo haray carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga aftirsata nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam nabiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay ama dhulka ciraaq buu u dhashay dabeetana falastiin buu uhijrooday kadibna wuxuu yimi maka halkan markii dambe laga sameeyey waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaala ibn cabaas uu warinayo mawquufka ibn cabaas ku ahaa siduu sheegayey haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam labadoodaasi ayuu maka keenay dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin uga tegay oo qura sibraar biyo ah iyo mid timira ama laba weeloo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana watacaala amray inuu halkaas uga tago sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi kusoo noqday yani markaa hore ismaaciil keenay mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aanka ka waramaysa uu rabay inuu qalo ama inuu gawraco wiilkii ismaaciil ahaa falama aslama wasallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم مثل الله سبحانه وتعالى كتورميه ويقول كتاب التوراة هايسته أما كان يمكن التوراة كشيء سفر تكوين كويس كشيء ودوري تبشير مركاها نبي الله إسماعيل marlabaadkii uu kusoo noqdayna waa marka xadiiska ka waramaysa inuu yimi oo dabeetana uu yimi isagoo nabi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu yimi dabeetana uu weydiiyey xaalkoodii siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato nolosha ay cidhiidhi ku tahay oo yidhi waa tegaya inankaygi fariintaadaasiyo waxaa ku tidhahda aabbaha wuxuu ku yidhi casabada albaabka ama kaabada guriga gabada ayuu ku yidhi aabbaha nabi ismaaciilna markii uu yimi ay gabadhii u waqaftay wuu fahmay aabihii warkii uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa mid khayr badan maahe dabeetana waa iska sii daayey waxaa kaloo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu kusoo noqday dhulkaasi marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado sii hore u furay gabadhii kale markuu la hadlayna ee xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tiri waa fiican nahay iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inakaysi waa jinayaa isagoo maqanaysa lagu yiri oo safar uu jiro fariin labaad yani gabadhan hayso waraabuu uga tegey mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa taariikhda sugan ee lahayo axaadiistiya qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisaye ismaaciilna nin weyn ahaa isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisaye 4 jeer bay idhahdaa buu nebi ibraahim kusoo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey taariikhda carbeed cumuuman markaaynu tilmaamno nabigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixayga ku sugnaatay ilaahay wuxuu doortay buu yihi nebi ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisa ismaaciil ahaa ismaaciilla kanaana laga doortay kanaanana quraysh baa laga sii doortay qurayshna reer banu haashim baa laga doortay reer banu haashimna anaa laga doortay buu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam markaynu taariikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen 3 meelood baa iyada boqortooya ka jiri jirtay boqornimo loo caleema saaro 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen waa boqortooyadii yeman ka jiri jirtay ee gabowday boqortooyada yeman oo waktiyo kala nooca soo martay taariikhaha laga sheegaana runtii taariikho saa usii sugan maaha laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambambeeyey baa la sheegaa oo muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun yeman waa ximyar qabiilka la ohan jiray oo kamida qaxbaaniyiintaasi say lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen boqortooyinkaa wii sii dambeeyey oo culamaa taariikha kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii
markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray wadanka Yemen oo la soo gaarsiiyay inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa duunawaad nin la oran jiray yahuudi marka madaynta qabsaday in Najraan oo Kristaan ahaan jirtay lagu laayay waayo culamada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababta ay ku soo degtay qutila asxaabi al-ukhdud an-nar ذات الوقود في حال markaa soo duubno Yemen boqortooyada ka jirtay xiira meesha la yiraahdo Ciraaq ka mid ah boqortooyada ka jirtay Shaamna boqortooyada ayaa ka jirtay Xijaaz iyadoo marnaba boqortooyo caynkaasi kama jirin imaarooyin baa ka jiray baa la iska yiraahdaa laakiin boqortooyo rasmi ah kama jirin marka aynu soo qabanno magaalada Makka oo ahayd magaalada aynu oran karno taariikhda islaamiga ku weyn una baahan xogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii markii saynu naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo laba buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin Quraysh baana degtay meesha tan gaar ahaan Qusay ibn Kilaab ninkii la oran jiray oo ka mid ah Quraysh nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku abtirsada ka mid ah Qusay ibn Kilaab ayaa degay meesha tan Qusay ibn Kilaab waxa yidhahdaan waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta Kacbada iyo meesha xaramka ka baxda lama gooyn jirin dadkuna inay la gooyn bay haysteen haddana sharcigu saas u qabaa laakiin Qusay ibn Kilaab waqtigiisii gooyay baa la yiri markuu googooyay ayuu dabeetana soo dejiyay xaramka gudihiisa markaas buu Quraysh kala tilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xaggan dad in kala xaggan dejiyay in badan uu dejiyay Quraysh maal qabeynteed iyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan Butxa Makka ayay degi jireen Butxa Makka waa inta godan baa la yiraahdaa ee Kacbada ay waqtiga ku taalo marka aynu eegno Makka iyo maamuladeedu si kala dambeeyeen akhiran waxa qabsaday nimankaas Quraysh la yiraahdo oo wareegay yahay ninkaas la yiraahdo Qusay ibn Kilaab hareeraheedana waxa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin Kanaana oo ka tirsantay Quraysh waa laf ka mid ah qabiilkaasi Kanaana la yiraahdo Quraysh markaasi waxay noqotay dad isku dayay in ay tijaaro adeegsadaan baa mushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyn magaalada Makka la yiraahdo si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyo dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda Shaam iyo Ciraaq marna xagga Yemen u baxda waxay u fakareen tijaaradooda si ay u suurto gali lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax ilaaf la yiraahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradooda sii martay inay la yeeshaan qabaa'ilka dega heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuuro kala oo ilaaf u bixiyeen inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheekh inay kala qayb gali karaan inay siiyaan si tijaaradooda u socoto camalkaasi مثلا heshiisyada la galayo oo ku saabsan tijaarada Quraysh ay xoog ku noqotay ninka isna sameeyay waa Hashim ibn Abd Munaf oo isna kamid ah weeyadii Nabiga calayhi salaatu wasalaam yani Qusay waa weeyadii hore Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ninka Quraysh ma ka dejiyay tijaarada oo ninka isugu xidhayna waa Hashim ibn Abd Munaf oo isna kamid ah Nabiga calayhi salaatu wasalaam weeyadii tijaarada yani iqtisaadka marka markaynu soo duubno wuxuu salaysnaa kow qayb tijaara yahay sanaacada ama farsamada waxa la yiraahdaa aad bay ugu yaray waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo bariyaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxa aynkaasi kamid ah in xoola raacataana way lahaan jireen iyo inuu gaadsada laakiin asaaska dhaqaalada marka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed magaalada Amsterdam bay ahaan jirtay maadaama magaalada Amsterdam ahaan jirtay Amsterdam asal uu yahay nabadgelyo Quraysh waxay ahaan jirtay meel degan meeshay degantay Makka ahi dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo waxaanay ahayd in tijaarada waxa ugu badan ay ka shaqeyso heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda tijaaro duwaliya noqon karto oo duwalka kale iyo dhulka kale la baayac mushtarin karaan weliba dagaaladii ka dhaxeeyay Persia iyo Romanska ama labadii dawladood oo waaweyn ee markaa jiray inay waxay carqalad galiyeen dariiqii u dhaxeeyay tijaariga ahaa ee isku xidhayay Yurub ama waqooyigaas oo dhan
iyo Asia dariiqa isku xidha inta badan Sham iyo Iraq iyo dhulka baa la mari jiray dagaaladii labada dawladood u dhaxeeyay baa xidhay taas waxay sababtay la yiraahdaa in عن طريق مكة وآد وحاق بس تجارة بين مصر مثلا إنديا يدوك العقد اللي بسير الشري وحي يمسك في بلد عبد يسمر الشفاء يمن بي يمسك في فبتنا يمن بي مسكة في مكة كتمسك في مكة الشام هي حق الروم نسخ قتالية ستجرد وحي النقدين باب سكحرة مجتمعات بدن التجارية أي مكة حي غير مكانة ما دام أي تجارة فين بدن كشفين يروح النقدين باب maalqabeen badan iyo ku jiro oo reer maka rag baa dadkii ku gaarsiiyay weelkooda u dahab wax ka cabi jiray weelasha wax ka cabaan dahab ah Abdullah ibn Jadaan in la oran jiray koobku wax ka cabaa dahab uu ahaan jiray marka Qurayshi waxay yeelatay tabaqaad kala sareeya tabaqo tijaarada raasulmaalka weyn haysata oo heshiisyada kula tirtay dawladaha ama qabaayilka iyo wadooyinka dadka dega oo waliba tijaaradooda qaab shirkado kale u dhisan tahay oo ah qaasile aad u badan la raaciyo oo dadka dhanna shirkad la siiyo laga qaybgeliyo inay tijaarada si kala qaybgeli karayaan oo dadka danyarta wax badan haysan ribo wax ku siisan nidaamka ribo iyo bangiyada isticmaala iyo tabaqaad aan waxba haysan aad u fuqara ah oo aad u waxtar aan waxba haysanin labada kooxood ay deganayeen بكذا استعمال كريم انت بدل ما الشعبيه اللي يراها هي كريم ويدخل جديد كتقانين معروف راح واحد بيلعب السباله عن خلافه عثمان رضي الله عنه اي بيلعب markaasi markii waxa leena umuuma waxa ahayd magaalo baa mushtar oo xagan xabashida iyo afrikana waxa ka iman jiray bukhurta iyo dhirtan la shita iyo balgarayeedka iyo maxaa la yiraahdaa fulmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madow la adoonsado xagga shaamna waxa ka iman jiray baa la yiraahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo safeenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga shaam bay uga iman jireen xaggan India ama India dhankeedana iyaga waxa uga iman jireen inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka yani waxyaabaha yaryar raashinka lagu darsado tirada badan leh dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo weelasha waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan India tijaaradaas bay u dhaxeeyeen siyaasadda Quraysheedna umuuma waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisyo in la galo oo ma yahayn dagaal badan taariikhda Quraysh waxay yiraahdaan qabla intaan nabiga go'man alayhi salaatu wasalaam aanay dagaalka u xidhan horteed taariikhan waxa loo hayaa afar dagaal waxay galeen afarta dagaalna waa xurub al-fijara ka loo oran jiray afarta dagaalna inta badan waxa la yiraahdaa munawashaat iyo reer iska ahaayeen yani dagaal xataa aad u weyn ma ahayn dagaal waxoogaa lama yaryar aan taasi badnayn buha sababta waxa la yiraahdaa Quraysh intan ka horeysay islaamka may ku badnayn dagaalka siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirkad laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ay ku salaysnayd waliba waxa kale siinayeen mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyay markas diiniyo ay deganayd oo diintii Nabi Ibrahim laga dhaxlay wixii ka soo haray meesha uu sii yaalay inkastoo markii dambe waqtiga khuzaaciintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qalbeen gaar ahaan ninkii la oran jiray Amr ibn al-Hayy al-Khuzaaci oo xadiiska saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nabigu lahaa ka waxaan arkay isagoo naar xidihiisa ku daba wareegaya nabigu tilmaamay yani ahlu naarku ka mid yahay ninka kani waa ninkii koowaad ee asnaamta keena Makka sanamkii hubal la oran jiray buu ka soo iibsaday Shaam dabeetana tuurta ku soo qaatoo keenay kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo Kacbada agagaarkeeda uu nabigu alayhi salaatu wasalaam ka dubiyay 360 sano 360 sano oo la caabudo sanamadaas iyo waxaas way tiro bateen qaarkood dhagxan la qoray bay haayeen qaarkood xataa waxay ka ahayd meel yar oo buuro taagan oo dhagxan ku ururtay مثلا سنمدي أساسيا نائلة iyo وقوي مروي يصفوي meelaha yaalay iska kor yar oo ku soo dhagxan saaran tahay ayay ahayd sanam caabud kan waxa kale madada Bukhari sheegay xadiiska Abu Rajal oo taaradi sahabiga la rasuul tilmaamay waxa sheegay yani dadku say sanam caabud kan iyo waxa kan xadbay ka gaadeen walaha marka aanu weyno xataa dhagax inta nuciid ku ururinaabana neefada iyo kullu sanabuura markay isku dhagaan ana ilaaba kale marka laga leeyahay isku dhaga ciid
ay si dhagaxo kala weekaataabaan sanam ahaan u caabudi jirnay. Yani xaj markaa xataa dhagax la waayo in ala lagu liti jiray ciidda inay si yaro dhegto uun aad waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi. markaynu usoo noqono magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysanayd, waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badan ay kaga dambeeye quraysh manzilo ay ku haysatay. markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taarikhda inta la hayo kuwii ugu horeeyey ahaaye nebi ismaaciil ba ugu yimi agaarkooda iyagoo degan, dabeetana khuzaaca, dabeetana quraysh baa degtay. quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo. markaynu eegno taarikhda maanta la hayo kama badna masalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego ilaa 150 sanadood qabla alislaam. taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo xoogaagii meelahaasi ay u badan tahay taarikhda wixii ka dambeeyey si fiican loo hayo ee meesha kan taalay. waxaana bilaabay inuu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha kan degay. qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googooye quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganay, gacaladeedana inta aan waxaysan ba inta badan deganay. wadaaiftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkeeda u qaybqaybiyey ama caruurtiisii. qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa kamid ahaa daar nadwa, oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laisugu yimaado oo taladeedu ka go'do. gurigaasi runta ay dhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay markii ahaato meel nabadgelyeed ka salaysan. waayo mar haddii la hayo meel waayeelku intuu isugu yimaado lagu shiri karo, arrinta lagu gorsan karo, qadiyad kastoo dhacda mar haddii ay soo gaari karto waayeelko loo soo gaarsiin karo, waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhamaan karta. qusay ibnu kilaab marka waxyaabaha caanka uu sameeyey waxaa kamid ahaa daar nadwa meesha la yidhaahdo, oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhama fadhiistaan oo lagu shiro. waxaa kamid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane. waxaa kamid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadarada iyo cidda u wadaadada iyo intan oo dhan in iyagu gacanta ku hayaan, waa xijaabadii. oo kamid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat lxijaaj, oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan wax haysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajiya. waayo xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim marka alayhi salaam, ilaa nebi ibraahim taanu baa loo soo xajayay. marka xataa intaan nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayay, laakiin xajkii oo la qalday oo shirkiyaad iyo waxaan diinta kamid ahayn lagu daray ayaa joogay. marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu samayn jiray diyaafa, meel xawd ay ka cadaan oo biyo uu macaaneeyo, timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo. wuxuu sameeyey yani siqaayat lxaajka, rurada, xijaabada, waxaasi oo dhan. waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa, iyo abuurtiisii qaar kamida buu gacanta usii geliyey. masalan daaru nadwaha uu sameeyo kaleba la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda, waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go'aamin jiray. waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii, masalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxa la kala baamishtarka socdo ha ahaato. waxaana fadhin jiray baa la dhaha mala-ul qowm, madaxweyneynta reerka nin 40 ka yar uma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taarikh markay ka warwaramayaan. daaru mashhuura bay ahayd. runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahdo quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii. caadaadkii iyo dhaqamadii iyo wixii uu gooyey qurayshna diin bay ka dhigteenba, in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin, ama ha noqoto sidii ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah, ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uga tegey kalkii waxay ka dhigteen in wax diin oo kale ah oo sideeda loo ilaaliyo. ahaan nimanka orada quraysh ninkaas wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay. isaga dabadeedna waxaa soo baxay runtii rag kamid ah abnaadiisii ama dadkiisii oo kamid yahay hashim ibn cabdimunaaf, oo kamid yahay almualib, oo kamid yahay cabdilmualib, oo kamid yahay aba aalib, oo dhammaantood aan odhan karno waxay sii kala dhaxleen inay sii haystaan wixii uu aabahood ka tegey ee ku saabsiibnaa qadiyadaasi maamulka. masalan hashim ibn cabdimunaaf ibn qusay, yani qusay waa awowgii, waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan iyo iraadka waxaan loo bixiyey, ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duuliya oo ka baxsan meesha yar oo dhan.
waana ninkii u qoday baa lagaa ceelal badan buu sameeyey reer mako ay ka cabbaan. walaalkii oo almutalib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay, qabsaday. mutalib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa, nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa, nin cibaado badan buu ahaa. quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa. waxaa kamid ahaa hashim inankuu dhalay ee mutalibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmutalib, magaciisa caadiga shayba baa la odhan jiray, oo waxaa la yidhahdaa hashim ayaa qabtay baa la yidhahdaa. hashim markuu guursaday wiil dhalay ayuu ka tegey. wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu hashim dhintay. dabeetana odaygan mutalibaba weer dambe loo sheegay isagoo wiilkii 6 jir meelaha maraya ama weynaaday, wuu doono wuu soo qaaday. markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxaa aragtay wiilkan yar uu sito, dabeetana wiilkii waxay isaga bixiyeen war waa adoon yar isagu keensaday cabdilmutalib bay u bixiyeen. yani magaciisa asalkii shayba buu ahaa. mutalibna waa adeerkii oo hashim la walaala oo soo koriyey markaasi oo keenay. dabeetana cabdilmutalib buu iskaga caanbaxay. cabdilmutalibna waxaa runtii nin aada ugu caanbaxay beeb oo shaybat alxamdi bay markay doonaan na oran jireen. waxaanu kalo ku caanbaxay waa ninkii u qoday mar labaad ceelkan zamzamka ah. yani zamzamka nabiyullahi ismaaciil ayaa ka tegey, laakiin waxay yidhahdaan khusaaca berigii meesha laisku dilsilay ee ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen. marka meesha waa la waayey. waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmutalib ilaa 4 jeer uu riyooday. markii ugu dambeysayna in loo tilmaamay meeshu meeshay tahay. riyadaasi sanad xasana bay runtii kusoo arortay ilaa caliy bn abi aalib kasoo arortay. dabeetana ceelkan buu u qoday. ceelkii zamzamka markuu qoday ee soo saarayna waa muran dambea ka yimi oo quraysh baa ku qabsatay. quraysh markay ku qabsatayna qaab bay u garnaqsadeen. cala kulli xaal insha allah waa laga yaaba inay mar dambe aynagu soo noqoto. waxaan uga jeednay intan aynu ka waramayno o dhan cumuuman inaynu ka warano qaabkay u dhisnayd magaalada maka iyo sidii loo joogay. laakiin taarikh ahaan marka laga waramayo, taarikhda had iyo goor waxay ka bilaabaanin nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii, maadaama taarikhdeenu dee nebiga unay ku salaysantay calayhi salaatu wasalaam. inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin. waxa ugu badan ee laga waramaa inay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii. mararka ugu badan waxa kale laga waramaa waa zamzamka iyo sidii uu qodmay, iyo in la tilmaamo maaasirtan reerkii nebigu ka dhashay inay reer meesha magaca le ku ahaayeen. hadduu yahay odaygii qusay ee magaalada degaankeeda iyo waxa kan waxaynu naqaanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka laga waramayo nasabkiisa. nasabkiisu 3 qaybood buu u qaybsamaa. qayb culamaai taarikh ama culamaai siira dhammaanteed way isku waafaqsan yihin, qaybna aad bay isugu khilaafsan yihin, qaybna iyada waxaa laga sheegaaba waa iska war kutirkuteena. 3 qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan qaybta ilaa cadnaan inta la gaadhayo, cadnaan inta la gaadhayo oo 21 awow ka tirsan, 21 ka tirsan. culamada taariikhda soo warisa dhammaantood way isku wada waafaqsan yihin. yani nabiga in la odhan jiray maxamed ibnu cabdillahi ibnu cabdilmutalib ibnu hashim ibnu cabdilmunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu luay ibnu ghalib ibnu fihr. fihr waa ninka quraysh la yidhaahdo. fihr markaasi 10 buu kasoo tirsadaa. xagga dambe cadnaan iyo fihirna 10 kale si kala tirsadaan. 21kaas iyagoo la isku wada waafaqsan yahay, waxaanay u badantay inay saabit yihiin. marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la geynayo aad baa khilaaf badan u jira. yani taariikh kala badan oo aada u kala gedisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaasi la tiriya. laga bilaabo weeyaan cadnaan ilaa iyo inta la gaarsiinayo ismaaciil ama ibrahim. xagga kasii dambaysanada markaa kasii muran badan inaad nabi ibrahim u abtirisay ilaa aadam aad gaadhsiisaana. kutub taarikh ama kutub siira intaba way qoraan. masalan
waxaan filayaa inay cadnaan matalan iyo ismaaciil meelahaas ilaa 40 baan u malaynaya inay udhaxaysiiyaan, laakiin intaa dambe oo dhami waa iska murankeedu iska tiro badan yahay, si qurana uma wada tilmaamna. markaynu hore uga soconno inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaabaha ugu caansan. waxaa kamid ah biir zamzamka iyo qodistiisa oo aynu nidhi waxa ugu asaxsan riwaayadda ibnu isxaaq laga warinayo ee caliy ibn abi talib gaaraysa, sanadkeeduna xasan yahay, ee sheegaysa inuu ku riyooday cabdilmutalib oo marafaadkii loo tilmaamay. ama aahaarta sheegaysa wixii uu kasoo saaray kullaha waa riwaaya daciifa bay yidhahdaan, yani waxyaabo badan bay sheegaan uu meesha kasoo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheegay waxyaabo kasoo saaray. kuwa aahaarta kusoo aroortoo dhami waa daciif, wax badanna runtii ma sheegayaan. afarka labaad inta badan la sheegaa waa qisadii waktigii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamulfiilka ah. qisat lfiil iyada waxaynu naqaanaa qur-aanka sugay, alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi lfiil, qur-aanka ayaa sugay. culimada taariikhda qortaana waxay ku tilmaamaan inay ahayd 570 ama 571 miilaadiyada, tan imika 2001 maraysa, marka 570 qaarkoodna waxay ku tilmaamaan 571 meelahaas inay ahayd. qisadaas duuduubkeeda oo dhan markaynu isu soo geynana waxa ay sheegaysaa yani bacd saxaaba ayaa laga warwariyaa, laakiin saxaabada laga wariyey waa saxaabo yaryar oo iyaga iyo qisada tan ilaa 50 sanadood meelahaasi ay udhaxaysay. laakiin waxaad garan kartaa un aahaar ka hadhay oo qisadan la wada yaqaan inay jirto. masalan caaisha radiallahu canha waxay sheegaysaa inay soo gaadhay, yani waa sanad saxiix, sanad xasan oo kusoo aroortay. caaisha oo kale masalan waxay sheegaysaa inay soo gaadhay oo ay aragtay iyadu maroodigii abraha ninkii waday iyo kii saains ka wahaye maydhmaydi jirayba, labadaasoo indhoolayaal magaalada dawarsaday inay soo gaadhay. yani maroodiyada nimankii wareydama kamida weeyaan oo indhoolayaal ah oo dawarsada inay soo gaadhay. masalan saxaabi yaroo laohan jiray qabat ibnu shaym baa filaya, isna wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay inay hooyadii tustay isagoo yaroo caruura, hooyadii inay tustay saaladii uu dhigeen maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay. laakiin isaguna caamulfiilka waxoogaa buu ka horeeyay, yani wiil yaro waxoogaa jira sanawaada ayuu ahaa, isna waa tirmidi baa warinaya. cala kuli xaal qaraain badan baa tilmaamaysa. ama qisadu siday u dhacday, khulaasat lqowl waxaa la sheegaya nin abraha la oran jiray oo xabashi ahaa, markay dhul badan sameeyeen oo isku dayeen carabtan kusii socota kacbadan uxajisay in laga duwo ay u taag waayeen, ayuu meel sameeyey. meeshii waxay soo wariyaan riwaayadkaas inkasta aanay xooganayn in nin carbeed kiniisadiitu sameeyey, kiniisadii wuxuu kaga sameeyey. cala kuli xaal wax kastaba ha ahaatee ninkan abraha la yidhahdaa wuxuu ku talagalay inuu duulo oo uu soo dumiyo. abraha markaa waa nin xabashiyeed oo yaman xukuma. xabashidu 2 jeer ayay yaman kolba gumaysatay, marka waa mar kamida kooxda tan abraha uu joogay, waa markii dambe ayaan rajaynaya. abraha wixii kasii dambeeyey waxaa qabsaday yaman persia. marka nabigu alayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay nebinimada lagu soo dejiyey bershiyan baa haystay, yaman eeraan baa haysatay. waktiga ay xabashidu haysatay meesha tan ayuu ciidan diray, ciidankaasoo ugu talagalay inuu kacbada soo dumiyo. laakiin ciidankaasi markii uu soo gaadhay maka duleedkeeda waa bilxas meesha la yidhaha, markuu soo gaadhay baa la yidhahda bay fadhiisteen maroodiyadii. marka xagga kacbada loo dareeriyana way ka fadhiistaan, haddii jiho kale loo sii daayana wuu iska dareeraan. meeshii iyagoo joogana ilaahay baa kusoo itixaamay tayran ababil tarmihim bixijaaratin min sijiil, shimbirahaasi duulaya ee dhagxanta la dhacaya ayaa yimi. shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen, dadkii badmeeshii bay ku dhinteen, qaar waa xanuunsadeen. abrahaha kan waxaa la yidhahdaa sanco isagoo ku dhintay bay yidhahdaan, isagoo googo iyagu yimo xanuun kala ku dhacayo dabeetana meeshaasu ku dhintay. qisadaasi marka lasoo dudubo waxa ay sheegaysaa in la jebiyey un abraha iyo kooxdiisii sida qur-aanka naskiisa ku cad. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaas caamulfiil. waxaa qisooyinka meesha la tilmaamo kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii
عبد الله عبد المطلب waxay sheegaan inuu nadar kana ibn Abbas baa soo arooriyay sanad saxiix ku soo saaray inuu nadaray Abd al-Muttalib waqtiga uu nadaray riwaayad ka daciif ku soo arooray laakiin marka la isku daro ala kulli xaal mursal saxiix sanadkiisu xasan yahay waa ku soo arooray waxa iyaduna duuduubkeeda sheegaysaa Abd al-Muttalib markuu Zamzam ka helay Qurayshtii kala ku qabsatay waxa lagu heshiiyey in la kala garbaxo riwaayadkaasi qaar kamid waxay sheegayaan inay qabteen Shaam iyo Yemen xagga in la isla qabtay kaahina joogtay habasha la waleynay soo kala saarto dabeetana dhexda markii la soo socday biyihii madeen riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin biyihii oo dhan baa madeen qaarna waxay leeyihiin isagu ma biyo kama dhan intii la socday intii haysatay biyo kama madan markii biyo la waayay kadibna ama fardihii fuushana mid kamid ah adikiisu meeshu ku dhuftay baa Ilaahay biyo ka siiyay rawaaka oo daciifana waxa rajaynaya inuu sheego sabab baday mid kastaba ha noqotee biyo la hela dabeetana dadkii haraadka u waqti gaaray mar labaad baa Ilaahay Abd al-Muttalib biyo ku siiyay dadna waxay dhaaween ninkan mar dambe la biyo lagu siiyay ku yar wax weeyana ku qabsanine haloo daayo Zamzamkiisa loogu daayay baa leeyahay waxay yiraahdaan arrin badan marka muu lahayn bay leeyahay lagu haystay Zamzamka wuxuu nadaray haduu xoogaysto Ilaahay tawakkul siiyo warka ka dhicin karo inuu 10 gaamid kamid ah Ilaahay u sadaqadeeyo 10 gaamid kamid ah inuu Ilaahay u sadaqadeeyo waxa la yiraahdaa 10kii wiil baa Ilaahay siiyay dabeetana nadarkii wuu qorituuray baa la yiraahdaa qorituurkii wuxuu ku dhacay Cabdillah dabeetana Cabdillah inuu gowraco way ku adkaatay dadka bar waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadu uu geeyo iyadoo ay tiri uu sameeyo 10 halaad diyadu ahaan jirtay isaga 10 halaad qorituuro Cabdillah ku dhacday tiri 10 kale ay Cabdillah ku dhacdo 10 kale boqol ay saartay laakiin riwaayada fiican iyadoo waxay sheegaysaa inuu boqol iyo Cabdillah loo kala suuray yani loo qorituuray qur'a loo sameeyay Cabdillah iyo boqolka markii loo qorituurayna boqolkii halaad ay qur'aadi ku dhacday marka nadarkii wuxuu ku dhacay boqolka halaad la gowraco Cabdillahina la siidayo Cabdillah markaa wuxuu u guuriyay inan Amina bint Wahab loo oran jiray tafaasiisha sida loogu guuriyay iyo arrimaha ku saabsan kuma soo aroorin iyaguna dariiqa saxiixa asxaabu taariikh yani riwaayadaadu tira badan bay iska soo arooriyaan umama waxay leenaayeen gurigaasi gabadha uu guursaday dabeetana wuxuu qabtay Madiina riwaayada rajayna inay xasan tahay baa sheegaysaa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo timir ka doono Abd al-Muttalib uu uga diray Madiina markii uu Madiina yimid uu ku xanuunsaday Cabdillah markuu xanuunsadayna uu geeriyooday riwaayadka saxiixay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro Nabiga alayhi salaatu wasalaam anama taariikh qaar baa qisas badan oo kala soo arooriya waqti inuu nabigu wada shay inta saro inuu jiray waxa laakiin inta badan waa iska wada daciif waxaasi insha Allah waxa saxiixa inuu uurka isagoo ku jiro uu dhintay nabiga abihi alayhi salaatu wasalaam anama taariikhna waxay wariyaan ba islaantii markaa gabayo baroordiiqo ay tirisay oo ay odageeda dhintay u tirinaysay nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi Makka dhalashada nabiga alayhi salaatu wasalaam war badan oo usbuura baa laga sheegaa war badan oo aan waxba ka jirin laakiin waxaynu isku dayeynaa waxaas aan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno nabigu alayhi salaatu wasalaam magaalada Makka ayuu ku dhashay sanadkaasi la yiraahdo caamul fiilkaasi oo u ahaabay nooran karnaa irhaas yani nabiga alayhi salaatu wasalaam alla uu sii muujiyay oo yani basharka oo dhamay qadiyada ay sii fahmeen oo warkeedu dunida oo dhan uu gaaray oo aad uu gaaray qaabkii uu nabigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhamay inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab waxa ku jira wax khayr badan lahayn allahumma illa hadith hasan ajra hasan li ghayrihi wal isaguna oo sheegaya in ay ku riyootay nabiga alayhi salaatu wasalaam hooyadii nuur ka soo baxay oo usuur Shaam oo dhan ifiyay kaasi waa insha Allah hasan li ghayri
ama waxa laaliya waxa kale ay ku soo arooriyaan ama ha noqoto raabkii uurka nabiga ay uu siday oo uu fududaayo kanbuu ahaa iyo waxaan may dareemi jirin waxaasoo dhan waa iska waxaan sanad badan ama xoog badan loo haynin waxa la mid iyaguna kuwa sheegaya markuu soo dhacay nabiga calayhi salaatu qaar baa uu soo dooday oo gacmuhu dhulka ku taay laakiin waxaasoo dhan waxba insha Allah waxba nabiga ku kordhin maayaan yani waxay dadku jecel yihiin in la boombooniyo laakiin boomboonisi risaalada waa iyo wixii Allah ku amaanay sidoo dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan رواية ضعيفة شيئا يسوي قدام بعض الشيء إذا لفته هو ضعيف قارب شيئا ملك الجبريل باب قدي إذا لفته هو ضعيف قارب شيئا عبد المطلب قدي إذا هو ضعيف لكن واسكم معقول إلا يلاحظه عبد المطلب ما دام يسوي هيي وعنو أبيه وبنته ويوجي هو يسوي سكرين هيي إنه يسوي قداء حنانية وتصوح معقول وصير عالية وفقصا أما واحد كلا الشيء هذا مين هو ضعيف وحبك مشيره waxa kale la mid ah waxyaabaha xadiiska daciifka tirada badan ama mawduuca kadaabinta badan ku jira lagu soo arooriyo jimba yeeliyay oo wax sheegay ama sanamada iyo macaabidii wataniyiinta oo dhan baa daadatay ama boqortooyadii Kisra iyo waalkeedii baa soo dhacay ama buxayradii yareeyay saawa loo oran jiray biyo laga waayay ama dajla yani wax badan bay sheegaan laakiin kullu haalihi wax ka soo qaadmay ساسي درادة دور حاصل نوع اسكا نعطينا وحين كدين لأنه النبي قلنا الشيء عليه الصلاة والسلام هو الماء هذه يسيده هو مشينا إلا هو ملي النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ قلنا الشيء وحالي غلمات التاريخ تقرأ اسكوه وافق سيين وقت قال يلاحظه عامل فيل لكن مال مكدش وقضية كمربطا مثلا صاحب الرحيق المختوم ويسوي لي مدوى الاسكوة وافصيها حديث صحيحة كصارري إن النبي سنين ده شيء إذا تأمركم أجره إن النبي عليه الصلاة والسلام مالين السنينات ده شيء إذا وحمر أنكم أجران أحاديث صحيحة وكصاررتي وأنا صاصب كصوانتهي سنة كاسي عامل فيلين وده شيء وانت بدن ولماذا تاريخ الاسكوة وافصيه لكن goormay ahayd waxa mashhuura oo aad u caan baxday oo dadku inta badan u haystaa inay tahay 12kii Rabiul Awwal oo sida ugu mashhuursan laakiin wax ku asaxay ma jiraan Ibn Ishaq ayaa soo arooriyay 12kii Rabiul Awwal inay tahay ابن إسحاقنا سنة سجن كموسى أرورين على شدة النبي عليه الصلاة والسلام إن اللبية تمن في ذاحد الواقدي وعاد بسي ضعيفا يسوي حساء أروريا إن هي طبعا كي ربيع الأول أبو معشر السندي نك الله يرضى علماء الحديث أكتر السجن ضعيف كا إن كستايد عدم بصير بو في المغازي كوها سيدا واقدي وكلا اسمه حساء أروريا لبضي ربيع الأول صاحب الرحيق المختوم وحسابه قاطي محمود باشا الفلكي وذاك الله يرضى تحقيقي سيده وكل شيء waxay baareen isniintu meesha ay kaga dhacayso Rabiul Awwal kii sanadka ku beegnayd dabeetana waxay yiraahdeen isniintaasi waxay ku beegnayd 9kii Rabiul Awwal qolada tirada waxay ku tagtay iyagoo aan taariikhan daliil soo aroorinayna soo waxay aroorinayaan ay tahay min hayta taariikh isniintaasi goorbay ku beegmaysay ayay yiraahdeen maalmahaasi dabeetana waxay qaateen inay ku beegmaysay 9kii Rabiul Awwal dhankan kale marka la sheegay bay dhaahdeen waxay ku beegmaysaa 20kii ama 22kii Abriil 517kii sida uu qirayo weeyaan Muhammad Sulaiman al-Mansufuri isku soo duuduub waxa loo baneeyay in Rabiul Awwal qaybteeda hore waqti kamid ah dhashay Nabiga alayhi salaatu wasalaam laakiin bidabdi mid ma jirto ولذلك رجع مولد كوضوضية وحكاني ما لا لغه من دون مولد سنة يعني إن مولد ستوحى كره الرئيسة إن معلومة هنا يتعين لك أفضل لكن وحيا هيدا دي السنة للرباه إن اسمين تا السنة هل الصوم كان فتفلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لغيه مثلا قضية مولدك كسر سنة على شبه كسر سنة مو تعليمين تي كسر سنة تاريخ ومعلومة كاهي وحا اللي معلومة تطبعك معلومة كاهي
idan haddaad rabto nabiga calayhi salaatu wasalaam weyneyntiisii wuxuu nabigu weyneeyey maalintu dhashay oo isniina. mawlidkeenu inta badan isniinba kuwa beego, mar jimcaynu mawlidnaa, mar khamiis baynu mawlidnaa, mar laakiin asalku waxa weeyaan in la mawlido uma ahayd maalin isniineed. isniintuna waa inaad soonto, qaabka loo mawlidaana warkaati qaabka uu nabigu jideeyeyna waxa weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunno tahay in la soomo, wahada yakfiina. ama wax laaliya waxa kale soo aroora isagu wax badan oo sanada ma laha. waxa timi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa uu dhashay ciddii naas nuujisay, hooyadii mooyaane yaa kale naas nuujiyey. xadiidka saxiixahi wuxuu ku soo arooray marka hore inay naas nuujisay Tuwayba, gabadhii la odhan jiray oo ahayd gabadh adoona oo uu leeyahay adeerkii Abilahab ninka la odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwii halka ahaa markii uu nebinimada nabiga la siiyey. markanuu nabigu yaraayo dhashay un daynan adeerkii dhalay unbuu arkayo waa buunbuuninayey. markaas gabadh adoona uu lahaa oo ilmo dhashay oo naas nuujinaysa ilmaheedii buu u keenay wili naas nuuji, waana gabadhaasi tii naas nuujisay Xamsana. walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii Xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen. Xamse iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen, oo labadaba waxa wada naas nuujisay Suwayba, islaanta la odhan jiray. waxaa timi Xaliima Sacdiya. qisada dheer ee ay soo arooriyeen asxaabu siira sanadkeeda muran badan ba ku jira, culamo badanina way diida sugnaanteeda. laakiin waxaa sugan kolleyba in nabiga qabiilkaa reer bani sacaad la yidhaahdo iyo islaanta Sacdiya la yaqaan inay naas nuujistay iyadoo ay sugantay. tan aynu leenahay ibnu Isxaaq aynu leenahay qisada dheer la tilmaamo waa qisada tan iyadoo sanadkeeda muranku ku jira. waa qisada sheegaysay in waqti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday, dameer yar ay lahayd ay soo fuushay, dameerkeeda tamar darri daraaddeed kolba loo joogsanayay. kadib ay maka yimaadeen, ay isku dayeen inay ilmo ay naas nuujiyaan inay helaan. carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama maka ay magaalo ahayd alxaadar oo reer magaala, waxay odhan jireen carruurtu si ay caafimaad fiican u heshay magaalada laga saaro baadiyaha kusoo koraan, caanahana baadiyaha kusoo cabaan. waxay arki jireen carruurtu markay baadiyaha kusoo kobacdo inay adadkaato ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsan tahay. saasi daraaddeed carruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray. islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen intay magaalooyinka yimaadaan bay kuwa tujaartu dhashay iyo carruurahaasi meelaha ayay odhan jireen kan ilmaha kuusoo naas nuujisiyo kuusoo koriye, dabeetana waa lagu maal siin jiray, xoolaa lagu siin jiray. qisada ibnu Isxaaq siduu soo arooriyey wuxuu leeyahay markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii carruur soo wada helheleen, Muxamed waa la wada dhaafaya baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam, waayo inan yaro ana aabba lahayn awowgaa waxoogaa ku siin doona waa iska nin aabihiin nooliyey baa la daydayanayay. saasi daraaddeed waxay leeyihin waa la iska wada dhaafdhaafay. magaalada soo marmaray wax la dhaafdhaafo aan kan dhaafnaba markii aan wax kala soo waayey ayaan sidamay tiri de faramadnaan hala noqonine haata wuxuu kusii farlaabo markaasaan iska soo qaatay bay tiri. agoonkan yare awowgii leeyahay la soo naas nuujiyo saasaan kusoo qaatay bay leedahay. sidii baa ku baxday. laakiin waxay sheeganaysaa marka iyadu wax badan inay ka aragtay. naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadoo waxbaba cunin unbu iska daralaayo, isaga iyo kii yaraayo kale la jaqeeyaba uu ka tiro batay oo xoolahoodii baa ilaahay u irmaaneeyo caanihii iyadoo abaara oo xataa reeruhu yidhaahdaan dadka kale war maxaa halka reerkani xoolaa daajistay idina u soo daajin weyde, waa lala soo daajiyaa un dadka kale oo waxba kuwooduma soo faa'iidaan ee uun islaantan xoolaheedu maa darara. barakaadkaa tirada badan le adigu nusuusta sheegtaa waa ma xoog badna, sanad ahaan ma xoog badna, culamada wax badan bay ka sheegaan. laakiin in ay Xaliima naas nuujisay iyadoo sugantay. Xaliima Sacdiya islaanta la leeyahay naas nuujisay, riwaayadka sheegaya axaadiista waa sugan yihiin insha allahu tacaala. intii ay islaantan uu la joogayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta. nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa 2 jeer in Jibriil uu qalay. mar waa markii Israa wal Mi'raajka, marna waa markan uu yaraa. markan uu yar yahay qolada tan la joogay Xaliima Sacdiya gurigeeda uu joogay, waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaar kale la cayaaraya
sida xadiiskii saxiix muslim kaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaar kale la ciyaaraya dabeetana jibriil inuu lagday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa lasoo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu kasoo gooyey xinjirtaasi inuu yidhi waa xadu shaytaani minka waa qaybta shaytaanu nafta ku leeyay yani qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaatiintuna waa la xidhiidhaa lama khayrka lagala xidhiidha iyo mid sharka lagala xidhiidha jira kaa sharka lagala xidhiidha markaa nabiga isaga laga saaray alayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu kasoo saaray wadnihiina calaqada yar xinjirtaa yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shaytaani minka wuu mayray tusdi dahaba oo maa u zamzam ay ku jiraan ayuu ku mayray dabeetana uma laama dib buu isugu geeyey meeshiisii buu ku celiyey serjarigaasi ama qalliinkaasi waxaa sameeyey malakul jibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi caruurtii yaryaraydna waa harartay markaasi oo islaantiiba utageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dilo oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu legdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii isira bedelay ila waa nin qalliin lagu sameeyey dabeetana anas ibnu malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yihi nabiga alayhi salatu wasalam anas waa ninkii wiilkii yaraa u shaqayn jiray nabiga alayhi salatu wasalaam markii uu nabigu u hijrooday madiina 10 sanadood oo madiina joogay nabiga khaadimo ahaa anas ibnu malik saxaabiga la yidhahda markaa wuxuu leeyahay nabiga waan ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul jibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaasi xaliima saadiya markii ay aragtay in wiilkii dee arrimahan inay kusoo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay masaladaa sheegaysa inay u cabsatay musnadu imaamu axmed bay kusoo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yaro tilmaamaa nin baa la dhaha mid lasoo cancaneeyey baa ku jira insha allah sanadku waa xasan haddii ninka cancanadiisa oo tasriixa la helo ala kulli xaal islaantaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan way cabsatay waxay tiri ilmaha iyo wax kugu noqonin haddaba reerkoodii isaga celi dib bay usoo celisay waxay keentay markaasi magaaladii maka ahayd ayay kusoo celisay waxay agta ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyey hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yidhaahdaa makay usoo kaca madiinay soo qabatay iyadoo rabta abtiyaasheeda ama wiilka abtiyaashiina inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto xabaashii odayeeda dabeetana markii ay kasoo noqoto ay dhexda soo socoto ayay dhexda ku gooday sida warama ay taarikh sheegaan alabwa meel la yidhaahdo maka iyo madiine dhexdeeda ah ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxaa kasoo qaaday gabadhii khaadimada ahayd oo nabiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tegayba baa la yidhaahdaa 5 neef oo geelan filaya iyo yaro adhiya iyo islaan madow oo umu ayman la odhan jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam tiisoo xaadinada u ahayd ee soo korisaya marka umu ayman iyo cabdilmutalib oo odaygii hayayabaa iska hayay saas baa cabdilmutalib uu ku hayay ilaa iyo isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxaa la yidhaahdaa 8 jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiixa kuma soo arorin oo culamada taariikhda sheegtay 8 jir meelaha markuu ahaa buu geeriyooday cabdilmutalibna markaas baa lagu wareejiyey adeerkii abi aalib nin xoolo badanna ma ahayn laakiin caruur badanna uu ahaa mana xoolo badnayn haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo aada u badan ayuu maciisa ahaa ilaa iyo intuu 40 jir gaarayay nabiga calayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u ahaa in badanna uu lasoo wax ka soo rabay inkasta ilaahay ku anfacin diintiisii oo aanu rumaynin abi aalib isagoo 40 sano nabiga usoo gargaarayay ku dhadhow haddana gaalnimunbu ku dhintay walidalika uu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii u dambeysay u dhimanaya waa ku lahaa kelimo aan ilaahay aakhire wax kugu weydiiyun dheh laa ilaha illa allah ku dheh markuu israado laa ilaha illa allah dhana habarqabi abi jahl oo meesha fadhiya yidhahda waa ceebeeyeysa ma maanta dinan ka yar raacday adigoo quraysh odaygii ay daba fadhiday saatan oo halkaas u saaray kadibna gaalnimadii buu iskaga dhintay
waana kuu nabigu la alayhi salaatu wasalaam cid gaalaha oo nabigu uu shafeeci doono isaga jira laakiin shafeecadiisu ma noqonayso mid naar lagaga saare waxaa naarta kulule weyn baa laga geynayaa iyo waxaa loo geynayaa naar yar oo aan laba kabood oo naar loo gelinaya laakiin waa laba marka loo geliyo buu nabigu yidhi madaxiisa yani baxbax min annaar ilaa qoobka naar joogta warad ama kaba noqota ama wax laga noqotay ayaa la gelinaya laakiin taasaa madaxiisu ka fakfakleynaysa xagga sare waa cadaabkaasoo Abi Talib gelaya noocaasiya idan ninkii gaalnimo ku dhintaa abahay baa sheekh ahaan jiray iyo adeeradayba awliyaha waxba ku helimaysa haddana dadku mid khayr qabaa noqonin walidaalika waa qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamaya abade nebi wiilkiisu ahlunaarka ka mid yihi nebi nuux soo qur-aanku inooma sheegay wiilkiisii u taag waayey oo laha warkaalay anigay soo raaca doon soo raaca lahaa buurtaan ka fuulaya ayaa iska tag qur-aanku wuxuu kaloo inoo sheegaya nebiyo haweenkooda ay ahlunaar noqonayaan xaasaskooda markay raaci waayeen oo waa ka imraatu nuux وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما شيئا وحكى له عكس القرآن كله شيئا هوان إله الرميي الرقود قالها يغنى جنة الجلية وامرأة فرعون إله آيات كسك الرمية إذن أبي طالب بقى مدسه هي أبي طالبنا قصص بدن على الأشياء أنتوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما دام أنا نوحين الروايات الصحيحة إن شاء الله وينوسكي بودينا waxay inta la raaciyaa waa tigistii uu nabigu soo dhowriyay 10 jira u tagay buxayra oo raahib iyo wixii lamida insha Allah ka soo baraka bilaabi doona wallahu a'lam billahi tawfiq